sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay hayaan xog ku saabsan halis amni oo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. qoraal xalay xilli dambe ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xiriirta in kooxda Al-Shabaab ay beegsanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. qoraal lagu baahiyay barta Twitter-ka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay inay xogta ay heleen ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba. hay-adda nabad sugidda ayaa qoraalkooda ku magacaabay xubin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen inuu qayb ka yahay qorshahaasi, hase ahaatee ay hay-addu ku daba jirto soo qabashadiisa. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu maalmo ka hor warbaahinta la wadaagay halis amni oo ka dhan ah naftiisa. markan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xubinnimadii ka qaaday xubno ka tirsanaa FID soona saaray digniinka madambeysa oo la siiyay xubnaha kale oo ka mid ah guddiga. sidoo kale koonfur galbeed ayaa sheegtay inay joojisay wada shaqeynta arrimaha doorashooyinka ee ra'iisul wasaare Rooble. dhinaca kale Galmudug ayaa iyana sheegtay inay ka walaacsan tahay khilaafka ka sii daraya ee arrimaha doorashooyinka. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa inoo soo koobaya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xubinnimadii ka qaaday xubno ka tirsanaa FID soona saaray awaamiir ku saabsan doorashooyinka. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa u qornaa sida tan: ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo bogaadinaya dadaalka guddiga FID ee guddoonka iyo xogayaasha guud ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku aadan hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee dalka. waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ambalyeynaya xubnaha baarlamaanka ilaa hadda qaatay shahaadada xildhibaannimo. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku boorinayaa xubnaha dhiman in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qaataan shahaadada xildhibaannimo ayna u diyaar garoobaan dhaarinta xildhibaanada si ay u bilaabaan gudashada waajibaadka dastuuriga ah. dhinaca kale waxa uu ra'iisul wasaare Rooble ka warhayaa ficilada guracan ee maalmihii dambe socday kuwaasoo la doonayay in lagu carqaladeeyo hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee uu soo saaray guddiga FID, taasoo muujinaysa damaca xafiisyada qaar ay ku doonayaan inay ku hor istaagaan dhammaystirka doorashada dalka una weeciyaan jiho kale. haddaba ra'iisul wasaare Rooble oo gudanaya waajibaadka ka saaran dhammaystirka doorashooyinka dalka markii uu arkay falalka la isugu dayayo in lagu carqaladeeyo hirgelinta jadwalka dhaarinta xildhibaanada, waxa uu xubinnimadii laga saaray Maxamed Xasan Maxamed Ciro oo lagu bedelay Irshaad Maxamuud Sheekh Daahir, Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadam oo lagu bedelay Xasan Cali Yuusuf. waxaa sidoo kale digniinka madambeysa la siiyey xubnaha kale ah Yuusuf Cabdiqayr Cabdinuur iyo sidoo kale Cabdinaasir Maxamed Guuleeda. sidoo kale Cabdijabbaar Cabdullaahi Faarax, Axmed Aadan Dagaal iyo sidoo kale Sacdiyo Xasan Xuseen. ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga digayaa xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida, shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo musuqmaasuqa ee ay ka dhex wadaan heerarka kala duwan ee guddiyada maamulka doorashooyinka, waxaana laga qaadi doonaa tillaabo sharciga waafaqsan haddii falkaas ay ku sii socdaan. ra'iisul wasaaruhu wuxuu farayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed in baaris degdeg ah lagu sameeyo isku daygii galabnimadii 4 bishii Afraad 2022 ee xubnaha laga saaray guddiga FID iyo kuwa looga digay inay carqaladeeyaan habsami u socodka hawsha shahaado siinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhinaca kale koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay joojisay wada shaqeynta arrimaha doorashooyinka ee ra'iisul wasaare Rooble. qoraalka koonfur galbeed ayaa u qornaa sida tan: dowlad goboleedka koonfur galbeed marnaba ma aqbali doonto damaca shakhsiga ee ra'iisul wasaare Rooble oo muddooyinkii ugu dambeeyay xadgudub joogto ah ku hayay madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay si dhow ula socotay in ra'iisul wasaaruhu uu si sharci darra iyo dana siyaasadeed ay ku jiraan u hor istaagay kuraas habraac saxa lagu doortay, wuxuuna ka dhiga adeeg inuu joojiyo faragelinta qaawan uu ku hayo doorashooyinka koonfur galbeed. dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagaysaa in xilliga ay warqadan soo baxday ay joojisay wada shaqeyntii kala dhaxaysay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. ugu dambeyn Galmudug ayaa waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay khilaafka ka sii daraya ee arrimaha doorashooyinka. qoraalka Galmudug ayaa u qornaa sida tan:
dowlad goboleedka galmudug waxay ka walacsan tahay xaaladda khilaafka kasii daraya ee ku yimid hanaankii jadwalka doorasho oo marayay meel gabagaba ah. dowladda galmudug waxa ay ka xun tahay doorashooyinkii oo heer gabagabaa maraya oo ay foodo soo wajahdo. ugu dambeyn galmudug ayaa ku baaqday in laga heshiiyo khilaafka arrimaha doorashooyinka.